lamaane ka soo jeeda Lithuania ayaa ku guuleystay tartanka adduunka ee xaas xambaarka oo ka dhacay magaalada Sonkajärvi ee gudaha Finland. tartan adag oo caqabado badan oo ay ka mid yihiin orod, barkad, biyo ku jiraan lagana gudbayo iyadoo ninku uu lamaantiisu xambaarsan yahay. koobka adduunka ee sanadkan waxaa ku guuleystay Kirkalavikas iyo Wanercha, waxay ka badiyeen oo si aad ah ula tartamayay horyaalkii hore ee adduunka ee reer Finland Taisto Mettinen oo tartankan hore ugu guuleystay 6 jeer. tartankan ayaa sanad walba waxa uu soo jiitaa kumanaan qof oo ka kala yimaada daafaha kala duwan ee dunida. dadku waxay isugu yimaadaan deegaan yar oo ku yaala bartamaha Finland oo tirada dadka deegaanka ay gaarayaan 4200 oo qof. tartankan oo la qabtay Sabtidii ayaa waxa uu ahaa kii 24aad ee la qabto. Kirkalavikas iyo xaaskiisu waxay tartanka ka qaadeen Mettinen oo ay kaga qaadeen koobka 0.1 ilbiriqsi, waa wax hal ilbiriqsi ka yar. Sharmaaka Cabdullaahi Daahir,